السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجنكي ومنجي وقيبتيني لبعض oo barnaamijkii gabadhii iyo wiilkii baynu kaga hadlaynaa qaybtii labaad. Kariima bay khadka iigu jirta. asxaabta waalid salaamay najiib waxa kuleenay kale yalla soo dhawaada kuwii hore kuwa cusub kuwa dambe kuwa dhexe kulligiiba soo fadhiista shaaha soo qaata waa sheekadii qisadii aad ku macaaneeday markaas muna laga soo wadaagay qaybtii labaad oo markaasna ay muna inoo bilaabi doontaa muna okay Kariimoy gabadhii ninkii waa kii dhoofay responser loogu yeedhay wuxuu ka degay magaalada Mareykanka ayuu ka degay magaalada Mareykanka markuu ka degay gabadhii aabaheed iyo heerkooda ayuu nambarkooda hayay markuu nambarkooda hayay ayaa waxa dhacday gabadhii uu heerkii soo weydiistay gabadhii heerkii markuu soo weydiistay waa la yaabay waa la fajacay waxa la ma inankii banaanka laga helay ayaanu gabadhayada siinaa kuma siinayo buu yiri aabaheed kadibna wuxuu yiri ima siinaysan mi aha iyadii buu la hadlay wuxuu yiri walayka diiday maxaa tala ah markuu ku yiri walayka diiday maxaa tala waxay tiri adigu waxaad ii soo dirtaa qarash ii soo dir qarash baa loo soo diray Nairobi ayuu geeyay gabadhii markuu Nairobi geeyo qarashkii loo diray waa la baadi doonay waxa la gaarayay xumaa ban ka soo reebina gabadhii waa la dhoofiyay ninkii Mareykan buu geeyay wuxuu ku yiri waxay ku tiri dalmaynii tahay oo ma qaadanaysaa walaayada ma siinaysaa ninka saasaan isku guursanayna aabaheed wuxuu yiri maya kadibna aabihii lug baa laga qabtay markii lug laga qabtay aayadii iyo caruurtay u dhashay waagii aabihii banaan cilaabay kaga guureen oo kaga dhaqaaqeen magaaladii odaygii banaanka u tuurtay gabadhii waxay noqotay aabihii inay iyadu u miciinto garanaysaa iyadii markay u miciinto wiilashii isagu dhalay iyo aabihii iyo aayadii iyo wixiiba gabadhiiba qarasha ugu safangaraysay saa markay ugu safangaraysay habartii odayga gabadha ilmaabti rumayihiin baa wiilka dhashay oo soo baxday kadibna gabadhii waxay tiri habartii waxay tiri wiilka dhashay waxay tiri anaa dhalay wiilka noocaasa waxaan rabaa in layla hadlo wiilkee dhashay wiilka noocaasa geedka noocaasaan dhigay beriga noocaasaan dhigay taariikhdii xilligii wixii oo dhan bay kasoo sheekaysa kadibna wiilkan odaygii aabaheedna gabadha aabaheedna ilmaabti baan nahay wiilkii baa waxa lagu yiri hooyadaa waa la helay xagee laga helay hooyadaa guriga guriga ku xigay deganeed dusha ka ilaashan jirta inankii wuu qaadan waayay wuu fajacay wuu yaabay wuu soo dirdisay gabadhii ilaahay wuxuu ogsanaa habartii aayadeed ahayd sidii iyada u biilinisay aabaheeda iyadaa dhakhtar geysay meel kasta marsiisay laba walaaladeeda way dhoofisay ninkii wuxuu yiri hooyaday baan doonaya in lay keeno Nairobi baa loo keenay wuxuu yiri hooyaday iyo aniga dhiig hanaloo kala qaado kadib dhiig hanaloo kala qaado buu yiri wuu u qaadan waayay isnaantii deriskaaga ahayd ayaa hooyadaa noqonaysa maskaxdiisa way geli weyday kadibna dhiig markii loo kala qaaday Nairobi baa la keenay Nairobi markii la keenay wuxuu hooyada dhiig laga qaado hooyadiisa dhiig looga qaado way is yeesheen inankii marna hooyadu soo eegaa mar gabadhu eegaa mar abtigii gabadha dhalay odaygii gabadha dhalay buu eegaa odaygii gabadha dhalay argagixisay arrintii ku noqotay kadib aabihii haddana la baadi doono aabihii baa la baadi doonay aabihii wuxuu noqday isaguna nin faamilka ka tirsan kadibna waxaa la yidhi maxaa kugu kaliifay inaad inankaaga geedkaa ku ridid hebel baa igu dafiray oo yiri intaan hameen isu tagnay yiri kaama dhalin haddii aad sheegtidna waan ku dilayaa ma garat kadibna waan dhalay inankii markaan dhalay oo muddada noocaasa dhalay geedkaasaan ku dhex riday goor hameena
kaa cunin baan isiri daanyarada iyo waxa wax cuna iyo kaa cunin baan isiri kadibna anigiiba waxaan tusay bay tiri gabadha korsatay baan ilmo yarba halkaa ka qaaqle kadibna wiilkayga dhakadan sidii ugala socday wiilkii wakaa koray wakaa heerkii la dhoofay heerkii wiilka dhoofsaday waxay ku noqotay mucjiso gabadhii waxay ku noqotay eedadeed aabaheed inaabti ruma yihiin bay noqotayoo mucjisay ku noqotay ma garata dilistii gabadha la dili jiray taariikhdii waxay soo martay odaygii isnaantii wiilka dhashay ayaa nairobi ku haysay guri baa loo wara kireeyey guri markii loo wara kireeyey gabadhi waxay tiri ilaa haddabay timunay annagaa hayna annagaa gacanta ku hayna aayadii idili jirtay i xanuujin jirtayna iyaduna way dhibaatootay meel bahalkiya tuulo ah baa la dejiyey tuuladaasi degantahay tuuladaasaan biilka ku siiya dee ninkii iyo gabadhii waxay isu dheen baylood buu noqday ninkii maraykan buu baylood ku noqday maasha allah sawiradiisa way iisoo tuurtay waan kuusoo tuuri doonaa nin baylooda buu noqday nin duuliyaa buu noqday maasha allah dee nin dad yeeshay buu noqday awalna wuxuu dhihi jiray alla cawo badana nin hooyo iyo aabba leh ma garata marka hooyo laba jeer buu inankaasi dhibaatoobay waa maruu hooyadii waayey waa maruu aabihii waayey waa mar cuqdadi ku beerantay saasay tahay wuxuu yidhi hooyada iyo aabbahay dad iiga fiican ayaan helay gabadhii aabbuhu dhalay buu yidhi marmar baan isdhihi jiray buu yidhi ninku aabbaha wax dhalay maba fiicna because sida gabadhan oo kale ku dhacday ba adna kugu dhici lahayd ma garata marka gabadha aayada ah aayadaan la talinaynaa aayadu way dhib badan tahay waxa samirka la yidhahda waa shay qaaliya awlaadaada u turo waxaa weeye beri ka maalin wax kumadan doona ilaahay baa og waxaad garata sooma la tuuraabe baa layi la tuuge waxaan leenahay laba khalad baad gelistaa laba khalad oo waaweyn baad gelistaa marka hore waad khaldantay hadduu ninku kugu dafiro oo kale iska korso marka laakiin hatuu dadba waxaa jira meel hoga ku ridaa meel boqol ka daba tuura ayada u dhiga laba dembi marka qof kasta oo walaalkaya oo qisahaya uu nala soo wadaagi karaa sida gabadha walaashaya oo nala soo wadaagtay qisada ma garateen marka wixii fikrad aad ka qabtaan xagga hoose noogu reeba kariima asxaabteeda maxaad leedahay asxaabtaada waxaan leeyahay haddii aad rabto inaad la soo xidhiidho muna youtube-keeda gala lambarkeeda ku qoran whatsapp buu leeyahay whatsappka fariimaha ugu dhaafa iyada markaas ay aragto oo xilligaa shaqadeedii ay dhamaysato ayadaa idiisoo jawaabaysa waa gabadh kastana haysata oo bacabishtira alaabada nooc walba keenta hadday tahay fadhiyada hadday tahay hurdooyinka hadday tahay shoobinka dumarka ayay noocaad u baahato hilib dad mooyaane way ku haysaa marka youtube-keeda gal oo markaasna lambarkeeda waad keenaysaa wixii fikirkaaga iyo aragtidaada qisooyinka markaas haddaad rabin magacaaga la sheego haddaad koolka rabtin aad nagala qayb qaadatid intaba xag hoose nagula wadaaga waxaan iskaga tegayaa qisadaas aad ka maaragtay u qeyrada badnayd iyo waxaan anigii munaasabada